ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warka iyaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay shirka wada tashiga dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo maalintii labaad ka socda magaalada Muqdisho ee arrimo culus oo ku gadaaman maxay maha salaad iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka yiraahdeen musharaxnimada Qayre iyo sidoo kale sida ay musharaxnimadiisa Qayre mugdi u gelin karto dib u doorashada Farmaajo موقفka Puntland iyo Jubbaland iyo shan qodob oo ay la tageen shirka magaalada Muqdisho safaarada Mareykanka oo shaacisay qodobo xasaasi oo looga hadlay kulan dhexmaray Donald Yamamoto iyo madaxweyne Waare iyo Trump iyo Ilhan Cumar oo isku haya qorshe lagu soo musaafurinayo dad Soomaaliya intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku bilownay waxa shalay oo axad ay ku beegneed magaalada Muqdisho gaar ahaan Villa Soomaaliya ka furmay shirka arrimaha doorashooyinka kaas oo ka wada qayb galayaan madaxweyne Farmaajo madaxda shanta maamul ee wadanka iyo gobolka Banaadir kulamadan albaabada u xiran yihiin ayaa qodobada ugu culus ee horyaala waa in madaxweynaha ay wada ogal ka gaaraan nooca ay noqonayso codeynta nagu soo fool leh iyo muddada ay qabsoomayso doorashada shirka aadka isha loogu hayo lana dhowraya furitaankiisa ayaa noqon karta barta gunaanadka dooda codeynta fursadii u dambeysay ee hogaamiyaasha Soomaalida iyo mid fashilkiisu sababo faragelin shisheeye madaxda oo gudagalaya maalmadooda iyo siyaasadeed ayaa la rajeynayaa inay si wada jira u hadlaan saxaafadda maalinta ugu dambeysa maalinta koowaad ee shirka Villa Soomaaliya ay warisay in madaxda iska xog wareyseen qaabka isaga fahmi lahaayeen qodobadaasi madaxtooyada qaranka waxay soo dhaweynaysaa sida madaxda dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay ugu dadaaleen ka soo qaybgalka shirka iyadoo haatan loo dhan yahay kamira dhalinta shirkan oo muhiim u ah hirgelinta doorashada dalka ayuu yiri kusimaha agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada Cabdirashiid Maxamed Cahanshi ka hor is aragan guud madaxda ayaa si gooni isku arkay iyagoo ajandaha uu kamid ahaa arrimaha siyaasadda ee taagan Jubbaland waxa ka go'an sidii heshiis loo dhan yahay looga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka dalka ee fooda inagu soo haya si ay dalka uga dhacdo doorasho heshiis lagu yahay oo waqtigeeda ku dhacday ayaa lagu yiri qoraal bogga Facebook ee Jubbaland isii la soo dhigay Puntland iyo Jubbaland ayaa ah maamulada dooda ugu adag la gali doona Villa Soomaaliya maadaama saddexda maamul kale iyo Farmaajo ay ku heshiiyeen nooc doorasho balse ku fashilmeen inay mideeyaan labada fikradood ee fooda isku dari doonta inta qarnaqsigu uu socdo waa in lagu dul shaqeeyo natiijada qabyada ahayd ee Dhuusamareeb 3 taas oo Villa Soomaaliya iyo maamulada taabacsan riixayaan iyo in dib loo naqshadeeyo heshiis cusub iyadoo siiqada laga hagaajinayo oo dhinaca kale la rabo Puntland mar walba dadaal joogta ayay ku bixisaa hanaanka dhismaha dawladnimo ee Soomaaliya oo door weyn ay ku lahayd haddana doorkeeda muhiimka ay qaadanaysa ayuu saxaafadda u sheegay Jaamac Dabaraani afayeenka madaxtooyada dawladda Soomaaliya beesha caalamka oo damaanad qaadayaalka dhaqangalka qodobada ka soo baxay kulankan ayaa si taaka ula soconaya maalmaha shirka iyadoo tallaabo qaadaysa mar walba oo dhinacyada ismari waayaan daneeyaasha caalamka waxaa fursadan gacanta u geliyay Villa Soomaaliya markii ay ku guuldareysatay inay soo magacoodo bedelka ra'iisul wasaaraha ay riday Xasan Cali Qayre kaas oo hadda ah musharax madaxweyne Soomaaliya oo ah qaran ka soo kabanaya burbur ayaa mid kamid ah guulaha uu gaaray waa in xilka si nabad ah loogu kala wareego balse waxaa dharbaxa in mar walba dhamaadka muddo xileedka dawladda laga hadlo doorasho ma qabsoomaysa dhinaca kalena warbaahinta ayaa heshay xog ku saabsan mowqifka Puntland iyo Jubbaland ee arrimaha doorashooyinka iyo qodobada ay qorsheeyeen inay la tagaan shirka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ee shalay ka furmay magaalada Muqdisho sida aan xogta ku helnay qodobada mowqifka ayaa badankooda ka yimid dhanka Puntland waxaana ku raacay Jubbaland maadaama ay kuwa ka mid yihiin si gaar ah u saameyn karaan Axmed Madoobe sida aan ogaanay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dan iyo kan Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa aad ugu dhagan qodobo dhowr ah balse ay ugu weyn yihiin shan qodob oo kala ah kow in astaynta jufada iskale kursiga loo daayo odayga qabiilka ee ka mid ahi 135 oday ee soo xulay ergadii 2016 waxaa jira jufooyin dhowr oo wadaaga hal kursi balse si wareegta ay u kala qaata waxaana go'aamiya odayga ugu sareeya beesha taas oo Puntland iyo Jubbaland ay doonayaan inaan waxba laga bedelin si lamid ah doorashadii 2016
labo Puntland iyo Jubbaland waxay sidoo kale doonayaan in ergada soo xulaysa xildhibaanada ay ka koobnaadaan 101 halka heshiiskii Dhuusamareeb 3 laga dhigay 301 waxaana ay sidoo kale doonayaan in guddi doorasho oo ka socda maamul goboleedyada uu soo xulo ergada iyaga oo kaashanaya odayga qabiilka meeshana laga saaro odayaasha beesha ee doorashadii 2016 soo xulay ergada taasoo awood u siinaysa maamulka in cidii ay doonaan ay erga u magacaabaan. 3 Puntland iyo Jubbaland waxay sidoo kale doonayaan in doorasho ay ka dhacdo oo kaliya hal magaalo meeshana laga saaro qodobka 4 ee heshiiska Dhuusamareeb 3 oo dhigaya in dowlad goboleed kasta laga asteeyo ugu yaraan 4 deegaan doorasho ay ka dhacdo doorashada. qodobkan ayaa waxaa si aad ah ugu dhagan Jubbaland oo ka cabsi qabta qorshaha dowladda ee ah in kuraasta qaar la geeyo gedo. Puntland iyo Jubbaland waxay sidoo kale dalbanayaan in meesha laga saaro qodobka 5 ee heshiiska Dhuusamareeb 3 oo dhigaya in codbixiyaasha 3 ilaa 5 kursi hal goob doorasho wadayaal la isku dhafo kadibna si wadajir ah ugu codeeyaan dhammaan musharaxiinta xisbiyada ee ku tartamaya kuraasta bedelkeedan waxay doorbidayaan in halka kursi ee baarlamaan oo kasay si gooni ay u doortaan 101 ergo. 5 in meesha laga saara hanaanka xisbiyada oo doorashada ay noqoto mid uu qof kasta oo ka tirsan beesha iskale kursiga xildhibaan u tartami karo isagoo aan ansixin uga baahan xisbi. qodobkan ayaa awoodda musharaxa kursiga siinaysa maamul goboleedka oo u mari kara odayga beesha halka haddii hanaan xisbi loo tartami karo awoodda qofka musharaxa noqonaya uu yeelanaya xisbiga. shirka shalay ka furmay magaalada Muqdisho ayaa inta badan u badnaa iswaraysi mana jirin arrimo gaar ama qodobo laga dooday waxaase la filayaa in mowqifka Jubbaland iyo Puntland ay ku soo bandhigaan kulamada soo socda. ila wareedyo dhowr oo warbaahinta ay heshay ayaa mowqifka Puntland iyo Jubbaland ku qeexay mid adag oo ay adag tahay in madaxweyne Farmaajo uu aqbalo taas oo ay ku sheegeen in la macno tahay isku day shirka lagu fashilinayo. qaybaha hore ee wararka Soomaalida ayaa daawanaysan halkaad nagala socotaan waa shabakada wararka maanta. geesa kalena maxay Maha Salaad iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka yiraahdeen musharaxnimada Qayre. xildhibaan Maha Salaad iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa siyaabooyin kala duwan uga falceliyay shaacintii musharaxnimadiisa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre. ugu horeyn Maha Salaad ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu su'aal uga keenay sababtoo u suurtageli weysay Qayre in musharaxnimadiisa uu ku shaaciyo xaflad maamuusan. degdeg ayaa cabsida ka muuqday qoraalkii Qayre xalay soo dhigay Facebookiisa ee lala sugi waayay xaflad in loo dhigo maxaa loo fasiran karaa ayuu qoraalkiisa ku yiri. qoraalka Maha Salaad ayaa intaasi ku daray in magaalada uu deganaa ra'iisul wasaare ka noqday hal habeen xaflad ku dhigan waayay sidoo kale dal iyo dad inuu hogaamiyo loogu aaminaya. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa isna qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu kaga hadlay musharaxnimada uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Qayre isagoo dalbaday inuu qolo u tiiriyo ama isagu qirto qaladaadkii dhowr ahaa oo dawladdu ka dhacay intii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa. musharaxa cusub waan soo dhaweynaynaa laakiin dhiibisi qalbi dhagax weerarkii 17 ee xarunta degmada Wadajir xilka tuuristii Professor Jawaari safar xanibkii labadii madaxweyne iyo cunaqabateyntii Kismaayo mas'uuliyadeeda ha qaato ama meel ha saaro mise isagoo og ayuusan haddana ogeyn ayuu qoraalkiisa ku yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame. Xasan Cali Qayre ayaa 50 cisho kadib markii xilka laga qaaday waxa uu xalay shaaciyay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya. qaybaha dambe ee wararka Soomaalida ayaynu soo gaarnay. safaaradda Mareykanka ayaa shaacisay in safiirka dalkaasi u fadhiya Soomaaliya oo kulan la yeeshay madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo ka qayb galaya shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee ka furmay magaalada Muqdisho. qoraal kooban oo safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ay soo saartay ayaa lagu sheegay in safiirka Donald Yamamoto ku bogaadinayo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare sida uu raadinayo dib u heshiisiin iyo wadar ogal loo dhan yahay oo laga gaaro hanaanka doorashada Soomaaliya. dhinaca kale madaxweyne Waare ayaa isna qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu wada hadalkii uu sharaxaad badnaa la yeeshay Danjira Yamamoto iyo mas'uuliyiinta safaaradda Mareykanka wuxuuna sheegay inuu aad uga mahad celinayo siday uga go'an tahay taageerada Soomaaliya xilligan adag ee la marayo. kulanka safiirka Mareykanka ee Soomaaliya iyo madaxweyne Waare ayaa kamid ah kulamo xiriir oo safiirka la yeelanayay madaxda Soomaalida si uu ugu booriyay inay gaaraan heshiis loo dhan yahay oo ku saabsan doorashada dalka. ugu dambeyntiina xildhibaanad Ilhaan Cumar ayaa si adag uga soo horjeesatay qorshe ay wadaan laanta socdaalka iyo kastamka dowladda Mareykanka
kaasoo sababi kara in Soomaali badan la soo musaafuriyo. Dadka laga yaabo in lagu soo celiyo Soomaaliya waa dad si sharci darro ah ku jooga gudaha dalka Mareykanka, balse Ilhaan Cumar oo kamid ah xildhibaanada aad uga soo horjeeda xukunka Trump ayaa diiday tallaabada maamulka Trump iyada oo dhowr sabab sheegtay. sababta ay Ilhaan Cumar ku diiday go'aanka ay qaadanayso laanta socdaalka iyo kastamta dawladda Mareykanka waxaa kamid ah xaaladda ammaanka Soomaaliya iyo arrimo la xiriira xanuunka coronavirus oo mar kale ku soo laba kacleeyay dalka Mareykanka. Ilhaan Cumar waxay aaminsan tahay in dib u celinta dadkan ay halis weyn gelin karto dadka ku nool gudaha Soomaaliya, maadaama laga yaabo in dadka la celinaya ay qabaan xanuunka COVID-19 kadibna ay ku faafayaan Soomaaliya. Mareykanka waxaa ku nool Soomaali badan oo qaarkoodna sharci haystaan, qaarna ay sharci la'aan isaga nool yihiin. Tiro badan oo Soomaali ayaa laga soo celiyay wadankaasi tan iyo markii sanadkii 2016 la doortay Donald Trump. qorshahan ay wadaan laanta socdaalka iyo kastamka waxaa laga yaabaa inuu riixayo Donald Trump oo aad u neceb dadka soo galoojiga gaar ahaan Soomaalida. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga intaa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biiro subscribe sar, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkaynu halkan soo gelino. waana mahadsantiin.